بسم الله الرحمن الرحيم وقيب كمدا تحانيني سيدا شغل الله هلا قيبتنا مقعيدا waxaa la yiraahdaa buunbuuni beenaha sheegin meelo badan oo shaqo ka soo baxday ayaan shaqo u qortay hay'ado badan baan shaqo u qortay shirkadahan shaqo u qortay wasaaradaha qaarkood baan shaqo u qortay cidiba ima soo jawaabto hadalba layma soo yidhaa mar dambe ayuun baan ogaadaa in meelihii aan shaqada u qortay ay qofkii ay doonayeenba qaateen markaa waxaan niyad jab badan bay aniga igu keentay waayo waa CV la gudbinayo iyo application ama codsi ama qoraal la gudbinayo oo shaqo un la qoranayo haddana hadhow lagu odhanayo qof baa la qaateen cidiba kuu yeedhayn waxay u egtayba in dadkan ay marka horeba si calaamadsadeen dadka ay doonayaan inay shaqadan siiyaan annagana ay dee nagu buuxinayaan uun maaragtay tirada uun oo dee doonaya inay yidhahdaan uun imtixaan dad baa soo codsaday iyo wax la mid a marka waxaan dee niyad jab baabanu ka qaadnay hadallada sidaasi had iyo goor waa hadallo ay dhalinyaro badan ku hadasho oo ka niyad jabta dariiqan loo maro shaqadoonka iyagoo rumaysan in waxani malaha aanu si fiican u dhicin in malaha dee si kale wax u dhacaan inay ka niyad jabeen waxaan oo dhan waa wax dhici kara anigu malihii yani wax jira maaha waa wax ay suuragalta inay dhacdo laakiin in adigu ma isweydiisay haddaad dhalinyarada noocaasa tahay ama qofka noocaasa tahay bal in cilladda qeyb ka mida adiga tahay oo aanay wada ahayn un dadkan aad codsiga u qoratay inay wada qaldan yihiin in qeyb ka mida adiga ay tahay oo qalad adiga xaggaaga ka yimid haya maya way noqon kartaa jawaabtu laakiin bal hadda meel yar aynu ka eegno marka horeba marka shaqo lasoo xayeysiiyo ee dadku qorto ee qofka la yidhaha waxaad soo gudbisaa codsigii ama applicationkii shaqada waxaanad kusoo lifaaqdaa CV-gii oo ah warqadda muujinaysa khibradda iyo inta sanadood qofku soo shaqeeyey iyo tacliinta uu soo bartay muujinaysa maxaa laga rabaa horta maxaa CV-gan iyo warqaddan codsiga marka horeba dadka loogu xujeeya ee loo weydiiyaa haddii aanad taa fahmin waxaa dhici karta in sababahan shaqooyinka inta aada u qorato aan cidiba kuu yeedhin inaad mar dambe u maqashoon iyadoo qof kale la qaatay inay tahay inaanad xoog u fahamsanayn sababta CV-ga iyo codsiga loo weydiiyo qofka shaqada waxaa soo qoranaya dad badan haddii marka shaqo lasoo xayisiiya ama laba lasoo xayisiisiyo 10 qof 20 qof 60 qof baa soo qoranaya waxaana rabaa un in 3-4 qof un la imtixaamo si hal qof loogala baxo sideebaa markaa 50 qof ama 20 qof ama 30 qof ee shaqada soo codsaday inta lagaaga soo dhex saaro aad uga mid noqotaa 3 ama 4 loo yeedho ee interviewga ama wareysiga lala yeesho CV-ga haddaad maqasho ama warqadda codsiga ee applicationka haddaad maqasho ganjeeladay dadka ka furtaa iminka haddaad xafiis timaado ama guri timaado oo ay dani kaaga jirto oo aad doonayso gurigaa dantu kaaga jirto ama xafiiskaa dantu kaaga jirto in lagaa furo albaabka inaad gudihiisa gasho mayane doorta inaad gasho soo kama horeysa in ganjeelada lagaa furaa ganjeeladu waa in cidi kaa furtay albaabkii geedhkii waa in qof kaa furaa oo aada gashaa de haddii lagaa furi waa maba gelaysid maan sheegin de haddaad gidaarka ka soo dhacdo ama daaqadda ka soo dhacdo de markaana tuug baad noqonaysaa qof soo dhacayo daaqad ka soo dhacaad noqonaysa laakiin haddaad qof caadiya tahay ganjeeladu waa in lagaa furaa CV-gu iyo warqadda codsiga shaqadu waa labada shay ee albaabka kaa furaya si aad gudaha u gasho xafiiska haddii markaa CV-gaaga iyo warqadaada codsigaa wax ka qaldan yihiin dee cidi albaabkii kaa furi mayso haddaba maxaa qaldanaan kara dhowr shay baa qaldanaan kara waxaa qaldanaan kara CV-gaaga haddii masalan uu yahay CV yaroo aad intaad beri hore qortay sanadkii 2013 kolba meesha shaqa ka soo baxday isagoo sidiisii un aad geyso horta waxay u badan tahay inaan lagu yeedhin xataa hadduu yahay CV aad kal hore qortay waxay u badan tahay inaan lagu yeedhin shaqo kasta oo aad codsato oo soo baxda waxay u baahan tahay CV u gaara inaad samaysato hadda adiga ismaad bedelin isku qofkii un baata tacliinta soo barata waa intii un waayo aragnimada shaqeed leeda waa intii un haddana shaqo kastoo lasoo xayeysiiyo CV cusub oo u gaara shaqadaasi ayaad samaysanaysaa oo muxuu noqonaya markaa CV-gaasi wuxuu noqonayaa CV inta aad taabatay buunbuunisay oo aad ku fadhiisisay waayo aragnimadaada shuruudaha laga rabo shaqadaa marka aad qoranayso
hadda been maad sheegin oo maad odhan jaamacada aad ka soo bixin baan ka soo baxay, manaad odhan waxaanan kasoo shaqeyn baan kasoo shaqeeyey. laakiinse waxaanaad ka soo shaqaysay iyo jaamacadda aad ka soo baxday iyo tacliimaha aad baratay ayaad buunbuuninaysaa si ay ugu ekaato dhawaaqeeda iyo sidaad u qortay, si ay ugu dhadhanto waxaa la raba iyo shuruudaha la rabo ee shaqada lagu soo xayeysiiyey. warqadda codsiga ee iyaduna aad cv-ga ku lifaaqaysa dalabka ana waxaa laga eegayaa heerkaaga qoraal iyo luqad iyo isku dubarid iyo fikirkaagu siduu u egyaha warqadan laga arkaya. dad badani hadal yaroo isku wada mid a ayay shaqo kasta u qortaan, haddii markaa ama af soomaali tahay ama af carabi tahay ama af ingiriisi tahay, hadal yaroo isku mid a. I am applying this job, ama mudane waxaan salaan idiin soo dirayaa, waxaan doonaya ina shaqada, waxaa laga yaaba inaad shantii shaqo ugu dambeysayba warqad isku wada mid oo isku siiqada qortay. waxaa laga yaabaa cv-gaad gudbisay inuu yahay cv isku wada mida. waxaa kaloo laga sii yaabaayo ta ugu darana inuu cv-gu photocopy, cv-gu hadduu photocopy qofna ma qaato. cv yarood soo photocopy waxaa lagu tusayaa inaanad shaqadan ihtimaam ama aanad siin yani soo jeedkii la rabay inay shaqadan adoo shaqo dhan oo mustaqbalkaaga siinaya, hadduu cv-gaagu wagashay, hadduu iyo photocopy yaro warqadaad mar intaad samaysay aad sii kala sawirtay ay ka muuqata photocopygii, haddii markaad soo qaadatay aad intaad kilinkilada soo gashatay ama adigoo isku soo duuba aad keentay, waxay ka muuqanaysaaba inaanad shaqadanna si fiican u qaban doonin. cv-gaaga buunbuuni, qurxi, shaqadan imika la rabo u eg. bal aan tusaale yar ka soo qaadna. had iyo goor shaqada lasoo xayeysiiyaa shuruudaha lagu soo xidhaa way ka badan yihiin waxa xaqiiq ahaan shaqada la qabanayaa, oo wax badan baa shuruuda lagu soo xidha. laakiin marka hadhow shaqada la galo, shaqadu sidaa uma sii ridna sida shuruudaha ku qoran oo kale maaha, way ka fududay. marka shaqadii lasoo qoray shuruuda lasoo qoro, waxaa bal masalan waxaad kasoo qaada waxaa la yidhi waxaa la doonayaa injineer 4 sannadood oo shaqo ah, khibrad soo leh, jaamacad kasoo baxay, sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa kasoo shaqeeyey, intaa iyo dhismayaan. adna waxaa laga yaabaa inaad 2 sannadood ama 3 sannadood aad injineernimo kusoo shaqayso oo aad la shaqaysay shirkad magaalada wax ka dhisaysa. adigu de kolley markii shirkadda aad la shaqeynaysa maad ahayn injineerkii ugu weynaayo oo ugu maskaxda badnaa wax qorsheeyey. waxaa laga yaabaa inaad kaaliye ahayd, kaaliye injineer. laakiin de markaad shaqeyso waxaad odhanaysaa waxaan ahaa qeyb ka ahaa khubaradii injineerada ahaa ee dhisay wadada u dhaxaysa magaalo Hiblaayo ilaa magaalo Hiblaayo. waxaa kaloo ka mid ahaa markii aan shirkad Hiblaayo ka shaqeynay khubaradii dhistay dhismayaashan hebel iyo noocaas iyo noocaas iyo moolka halkaa ka dhisan. de qayb baad ka ahayd khubaradii, waad yaro buunbuunisa. inkastoo laga yaaba inaad kaaliya injineer ahayd oo dee ay injineerada kale ahaayeen dadka qorsheynaya ee waxaan kala dabaraya ee wax hagaajinaya, laakiin haddana qayb baad ka ahayd. marka halkaad ka odhan lahayd waxaan kaaliye u ahaa injineer hebel, waxaad leedahay waxaan ka mid ahaa khubaradii iyo injineeradii hawsha sidaas iyo sidaasa wax ka qabtay. kor baad isu yaro qaaday, dhexbeenana maad sheegin. waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii wax ka qorsheeyey jidka magaalo Hiblaayo ilaa magaalo Hiblaayo dhismihiisa. haddii khubara kaa waaweyn qaarkood ajnabiyiin baa ka qayb gal, laakiin qayb baad ka ahayd. laakiin ha isdaciifinna hoos ha isu dhigin. taa isdaciifinta meel kale aynu kaga hadli doonaa, barnaamij kale oo kan la mida. laakiinse marka waxoogaa is yaro buunbuuni, qurxi, siyaado ku yaro dardar, xawaashka ku badi cv-gaaga, applicationka xawaashka ku badi, si bal albaabkan lagaaga furo oo lagugu yeedho la yidhahdo bal qofkan ama gabadhan ama wiilkan inoogu yeedha aynu waraysane. marka dee lagugu yeedho waa qof iyo nasiibkii, qof iyo dadaalkii, qof iyo kartidii, hadduu wiil iyo hadduu gabadhiyi. laakiinse bal albaabkan soo quflan ee cidiba kaa furi weyda dhowr goor hore wuxu qoratay, waxa weeyaan bilaa warqadahaaga wax ka qaldan yihin. warqadahaaga hagaaji, warqadahaaga niid ka dhig, qurxi. fartad ku qoraysaa waa inay heer sare noqotaa. hadalla qalqaldan talabaad dhaqankeena waxaynu leenahay inagu guud ahaan hadalla isku wada mid aynu kala wada copy garaysanaayo, copy and paste isu wada eegood moodo in meel keliya laynooga soo wada qoray. si fikirkaaga oo kale u qor. qof kaloo kaa yaro khibrad roon iga eegdhe cv-gan, applicationkan ama codsiganna iga eegdhe, ha kaa soo eego, ha kaa tafatiro, ha la qurxiyo, buunbuunin badan ku dar. marmarka qaarkood xitaa haddii sanadaha khibradaadu yar yihiin, waxaad tirahdaa inkastoo 4 sannadood ahayno 2 sannadood un haayo nin sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa haddana sii ahaa. haddana markan dib ugu noqdo shahaadadeydii labaad ee jaamacaddu waxa ay si fiican uga hadlaysay arrimaha shaqadan laga rabay sidaa iyo yacni meelun ka soo galo iska kab
oo iswadwad. laakiinse c v yar oo isu wada eeg ood 5 sannadood horteed qortay oo wada photocopia iyo warqad yaroo arjiisku wada hadala ood soo qortay ood dushana ku ammaantay oo aad tiraahdo waan idin salaamayaa iyo caynka ayaanka taa maalin kale aynu ka hadli doonaa salaanta iyo waxaasi waa waxa dadka niyad jabiya laysma salaamo meeshan toos baa loo galaa because mid kalena meesha ku darso oo muhiima qofkan in loo shaqeeyo doonaya waxaad ka soo qaadaynayo qof buka oo doonaya dawo iyo dhakhtar adiguna waxaad iska soo qaaday inaad tahay dhakhtarkii dawada hayay ee qofkan buka daweyn lahaa hayso dhigin qofkii wax la siinayay marka qofkan buka hadduu doonayo qof xanuunka sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ka daweeyo shuruudii waa kan soo qorayde eelo qof sidaasaan doonayaa adigu marka c v-gaaga iyo codsigaaga qoranayso isu dhig inaad tahay dhakhtarkii qofkan xanuunsanaya dawadiisii hayay ee 1 2 3 4 oo markuu sidaa u akhriya idhahda qofkii aan rabay waa kan markaa bal ha kuu yeedho dee albaabada ha lagaa furo waxaan rajeynaya in casharkaasi ku anfacay wasalaamu calaykum